السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا قناة الجنة. تمرت waxaa lagu tiriyaa inay tahay cunto aad u muhiim ah iyadoo ka kooban waxyaabo fara badan oo koritaanka jirka bini'aadamka ka qayb qaata. Waxa kamid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ay timirtu jirka u leedahay haddii uu joogteeyo qofku cunista laba xabadood oo timira subax kasta. Hagaajinta habdhiska dheefshiidka. timirta caadiga ah iyo timir khaliifta labaduba waxa ay ka mid yihiin midhaha ku qaniga ah miqyada milmi kara kuwaasoo faa'iido u leh habdhiska dheefshiidka. hoos u dhiga cadaadiska dhiigga. cunista laba xabadood oo timira maalintii waxa ay jirka siisaa 50 miligram oo ah maadada magnesium taasoo ka shaqeysa ballaarinta dhumucda xididada dhiigga. daraasado la sameeyay ayaa waxa ay sheegayaan inuu u baahan yahay jirka qofka bini'aadamka ah 360 miligram oo magnesium ah maalintiiba si uu hoos ugu dhigo kacsanaanta dhiigga. xoojinta wadnaha. cabista koob biyo ah oo timir lagu qasay waxa ay xoojiyaan muruqyada wadnaha. ka hortagga xinjirowga xididada dhiigga ee maskaxda. timirta iyo timir khaliiftu waxa ay ka kooban yihiin maadada potassiumka taasoo ka ilaalisa habdhiska dareenwadka xanuunada iyo khataraha kale. waxa ay dawo ka tahay dhiig yarida. timirta waxaa lagu tiriyaa cuntooyinka aadka ugu qaniga ah maadada dhiiggu ka samaysan yahay ee ironta taasoo ka caawisa inay maskaxda gaadhsiiso oxygen ku filan. xoojinta iyo kobcinta xasuusta iyo caqliga. xoojinta caafimaad qabka indhaha. timirtu waxay ka kooban tahay fitamiino fara badan oo isha faa'iido u leh halkaasoo timirta laga helo maadada zeaxanthin taasoo aragtida isha faa'iido badan u leh. faa'iidooyinkan iyo kuwa kale oo badan ayaa lagu ogaaday cilmi baadhisyo la sameeyey waayahan dambe, balse Allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkeena subhana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa 1400 sano muddo ka badan ka hor inuu sheegay quraanka kariimka iyo xadiista. fadlan like share videogan haddii uu ka cajabiyay, sidoo kale subscribe garee channelka si uu ku soo gaaro video kasta oo cusub oo soo dhigno.